السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ سلام دمان أصحابتي غالية أصحابتي غالية سيدتهين في عنتهين من نبات خافتين إلهي إذن كيس ويدي رجينا ميل كستو أدونك كجوكتان خير إيه فرحات لسود دوادا اسكسو نقد كلو ونكسن وماموانا إيه مركلة إيه جنال كيني ماموانو إيه صاحبة غالية أغيارتي شرفت له سيدتهين في عنتهين nabad qabtiin shalay maraan soo galay wase xalay asinka xalay haye dhagaxyadii waa lagu dhegay yaa dhagaxyadii aan soo dhooboon dhahay dhinaca ma dhaqaajinaya aniga miskiina iska ahay waa lagu dhegay waxaan ka hadlayaa dhanka channelka xagga hoose maanta recordinaa jiro cashirka la socdo ama adeega la socdo so waa islaama dhammaan reer dabiib reer dadaal adinkana soo dhawaada khayri farxad soo dhawaada haye dhagaxyadii waa lagu dhegay ما شاء الله وحالي هدان لك الرونان روب مدو غير الله يسي جزاك الله انت كومنك كو اركي ما مسك صبرتري is fine وحلاي دي مله حوغا كفتن يرو او يا فرتاك تاغا سعودي الحمد لله انا اسفهني تاسبوا وحدن ما شاء الله سود هذا ماشي ميل دي رجلين وايه خيري فرحه سود هذا كمان كده فرديو وايدي صار نقونا إن شاء الله ساعات كبعدي اللايف أو آخرين دونا لايف أنا ربعنا نسوقله maybe عاو 8:30 UK time أما 9 هادوا 7 وحلا جرو مركا إن شاء الله لايف أنا آخرين دونا كمان كقاسكة إيو كمان كجود هدو إلهي هذا إيه سودواذا نو سودواذا خيري فرحل سودواذا سبوت بدنا دريمي وما هالسنتين أو سيدا جاركا جزاك الله هاي هراي نوضا لب ملها yaa kaftanaan soo tuurtameyno weligeed waxaa meesha ka dhicinaa ka dhacay dhagaxyadii dhinacyadii yaalo foo quruxda yaa markaan badda tagay aan kasoo qaaday dhagaxyadii aydi dhex dhigay marka waxaa lihi kadaa okay hayo waaye hore noo wada waa salaama dhammaantiin isku soo noqod kaloo wanaagsan xoogaa waxaa idiin wadaa arrimo aada u wanaagsan waa mahadsantihiin isku soo noqod kaloo wanaagsan ducada iyo saboodka markasta waa ku mahadsantihiin عشرة وضع عشر كاس وحاسكلا غير دبيب غير ددال غير الله يدسيو أذين كان إسبدل أيدين وضع أهو بنا كو فرحدين إسبدل غير قبا الله كدقو أمين يا ربي أوغوري بدنا مقلي وبلاوة دادكي 28 وها سايكل كودي last month ما شاء الله testing كي 2 weeks wait داد بدنا أوغوري ويحلين انت دمنا الله سيو ما شاء الله إيسو دواذا خيري في الحالة سو دواذا dalabaadka aad soo dirsanaysiin ahob inaa ku farxdiin meesha la yiraahdo ila shargaree dabiibka aan ka soo qaadaa codsiyo badan markaa arko oo isku afa waa soo qaadaa adeegiisa saana idinkugu keeni doonaa bishaan oo dhan wuu soconaya ilaa bisha dambe insha allah kabacdi 2 wiig camal markay bisha dambe socoto waxaa noo bilaaban doona repeat adeegii ayaan dul maraynaa saa usii kala fahantiin oo guriyadana allah soo badiyo aamiin ya rabbi soo dhawaada khayri farxad soo dhawaada saacadii bar inta laga gaara insha allah waxaan sii dhageysan doonaa codadka yaalo ilaa xalay iyo shalay iyo soo galaya qadka marka xariga dhagaha iigu jiro waa dhageysan doonaa wixii jawaabane caawateen wixii ka dambeeyaan bixinaa hadduu ilaahay yiraahdo laakiin haddii aad rabto inaad soo dhiibato akhbaartaada ama aad aniga gaariga gooni ii rabto nambaradan hortiina yaallaa la keenaa insha allah haye adeega hadda wado maxaa waaye videoga ma kusii dheeraanayo adeega hadda wado waxa waaye cirro ka carar nafaqada hoostiina taala insha allah khayr allah idsiiyo khayr allah nasii dhammaan fadlan nafaqada afka laga qaadanayo ha qaadanin haddaa tahay gabdhaheena beebi isku diyaarinayo waayo waa nafaqooyin quseeyo qurxinta adiga waxaa qaadan kartaa nafaqooyinka isku diyaarinta ilaahay baa bixiye laakiin xaajiga wuu qaadan karaa xaajiyadii aan diyaar ahayn ama gabdhaheena madaxa bannaan yaas waa qaadan kartiin waa dadka timaha ay ka hoobanayaan ama ay ka jajabaan ama ciraba ay isku bedeleen tan lagu dhaqo iyo tan la marsado iyo wixii kale oo lagu hagaajiyo hortiina yaalaan maasha allah isticmaal ilaa 3 biloodna siiya khayr allah siiya waxaan waa tintaadii oo nafaqada afkaada gasho ama aad ku dhaqday ama aamariday tartiib u qaadanayso kabacdina tintii baaba'day nafaqa beeshay cirowday jajabtay aflaaqa gashay ay soo habeynayso haddaa awoodidna aflaaqa haddii jirto oo qof timo dheer aad tahay iska jar ninka ragaana mar walbooba jaraasona soo annagaa marmar sii dayno oo bilooyin badan aana jarin
ama waqti dheer aan jarin. Marka timaha hala jaro wax yar oo beena ha laga jaro, hala isla simo kabacdina treatmentkan u bilaaba. isku soo noqod kaloo wanaagsan. I love you so much. waa qaatay talooyin badan oo laysoo gudbiyey. hayaha caafimaad waa laisku leeyahay soomaha kaftanka waa laisku leeyahay. marka soo dhawaada inaan live soo galaan aad ugu rajo weynahay. haddaan soo gali waayana saanoo kalean kusoo gala, laakiin commonka idiin aqrinaa, laakiin live aan aad noogu raajicinaya. soo gala kheyr badan iyo farxadaan ilaahay noo wada weydiiy dhammaan. cashirada baxo qofkii danaynayo ballanaa loo dhigtaa. qaybtaas waa qayb hoose oo private oo dadka codsigooda ay soo dirsanayaan. marka adeega ayaga iskale waa programka privateka dabiib iyo dadaal dadka ku jira waaye. waa gabdhaheena qaybta koobaad joogo ama channelka joogo waaye. gudaha dadka fadhiyane kheyr allaha il siiyo. waxyaabaha hadda waxaan idiin bilaabay yaallo ila sheergaree dabiibka oo codsiyada ah. codsigaaga haddaan soo qaato then adeega idiin soo wada gelinaya dhoodhoojinta qaybta ah. haddaan abaayo kale codsigeeda soo qaatane saanoo kale ayuu idinkugu soo geli doonaa. hadday wuxuu quruxda quseeyaan, hadday hormoonka quseeyaan, hadday cayil quseeyaan. adeeg badanay gabdhihii soo direen oo insha allah aan ilaahay ka rajeynayo inaad ka duceysaan. marka waa idinkaasahee insha allah isla tacaal wanaagsan, isku soo noqod kale oo wanaagsan. haye adeegyada aan soo gelin haddaad taqaanin waaba taqaanin, haddaadan aqoonina ilaahay ha idiin sahlo. linkina waa kaa hortiina yaallo. iyo baashaala nafaqadan caawa raggana way anfacdaa, dumarkana way anfacdaa. waxyaabo badanaa soo dirsateen oo u baahan inaan si kala faahfaahin idinkaga soo gudbiyo. waa idiin soo gudbinaa cashirka inaan diyaariyo leewaayo, kabacdina waa idiin soo gudbinaa insha allah. cashirkii xalay dad badanaa ka duceeyey dhoodhoojinta xagga xaaji maco ee dabiibii dadaalka bixaysay. haddaan soo dhageysanaya ducada maasha allah. wax walba maalinteeda imaataa. hore waxaa loo yiri xaajo walba maalinteeday fushaa. marka adinka le afkiinayo idin ceelin adeega soo gudbiya. anigana haddaan arko waa soo gelinaa insha allah. adeegiina wixii ku habboon waxa aan idiin doorto oon idiin diyaariyane daawo allah ku daro. kheyr iyo farxad aan ilaahay noo wada weydiiye dhammaan. wax badan oo fikrada ah ayaa soo gudbiseen. timaa loo baahan yahay. marka saas aawadeed waa isku soo noqonaynaa insha allah. wax kaloo wanaagsanaa idiin wadaa gabdhaha gaarka loola shaqeeyo. sida guudna insha allah waa aragteen inaa idinka qaatay talada. xaalku waa nabad, xaajadu waa kala degtay. adinka xaggiinana insha allah kheyr allaha ka dhiga. dhiirigelinta aa qaadanaysaana waa idinla jeclahay. wax kheyrla allaha idinla kulmiyo, waayo lama soo koobi karo. dadku dhiirigelintay u baahan yihiin, saaxiibtinimaday u baahan yihiin, walaaltinimaday u baahan iyo ducaday u baahan yihiin. marka walaalaha u duceeyay aan isku soo wada duceyno. amuurtana kheyr allah ka dhigo. haye qof walba siduu wax u rabo oo kheyr allah siiyo. annaga wax ma hayne, ibni aadam wax ma hayo. qof walba wuxuu rabo oo kheyra allah siiyo. anigana allah iisoo dhiibo, aamiin yaa rabbi. haye akhyaarta sharafta isku soo noqodka loo wanaagsan xagga guud iyo xagga dambaba. dadka aan la shaqeeyo dhammaantiin waa idin salaamaa. sidii un baan u codsanaya qofkii ila soo xiriirayo whatsapp ahaan imo cod reeb magacaaga, meeshaa joogtid iyo dantaada. su-aal kooban hadday tahay bacdal salaan uun ku dhageysto insha allah. ilaahay idinkiisa, ilaahay dartiisa waa kaaga soo jawaaba intuu ilaahay iga garadsiiyey. kheyr allah idsiiya dhammaan. haddaa gaar iyo gooni aniga ii rabtidna waa inaad tirahdid programka privateka ee cashir bixinta laga helo ayaan u baahanahay. ciladahaasaan rabaa inaan iskala tacaalo. laakiin fadlan waa inaad ka adeegataa ama aad taqaanaa barta internetka ama sida websiteyada maaragta laga adeegto adeegyada ama Amazonka. anigu waxaan bixiyaa link Amazon. waxyaabaha qalalan, waxyaabaha maaragtay dabiiciga oo qofku xorriyadiisa u gadan karo, nafaqooyinka programka kab iyo karin oo idin siiyaa. waad aragteen dadka meesha hoose fadhiyo waxaa idiin soo galayo waa kab iyo karin. sida guud dadka iila fadhiya ma arki kartiin nafaqadaas, waayo adiga kulama shaqeeya si gaara. nafaqadaasna waxaa loo diyaariyaa inay isku xiriyaan ama isku dabiibaan dadka ballanta dhigta ee bukinka la baxo. marka haddaa rabtid qaybtaas inaad kusoo biirtid nambaradaasaa laga soo ballansadaa. magacaaga, meeshaa joogtid, da-daada iyo waxa aad iska dabiibayso. haddaan is afgaranno oo ballantaada aad dhigato qaybahaas hoose oo cashirka u baxo ayaad ka mid noqon doontaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. saasaa dabiibka member looga noqdo oo loogu xirnaadaa inta aad isla tacaalkaada ka salgaaraysid amaba nafaqa kugu filan ood nafta iyo nolosha ku xeerisid aad ka heli doonto. in la isfahmaaho way fiican tahay. kheyr allah idin siiyo. lama soo koobi karo baahida loo qabo
isdhoodhoojinta ama isla tacaalka allaha idinla garab galo enerjiya loo baahan yahay aamiin yaa rabbi ama tabar lagu wadwado dan adduunyo ama lagu xeeriyo dan adduunyo allaha sahlo meeshan waa meel dhiirigelin waa kula jeclahay inaad dantaada xeerisid waayo cidi kuma oga haddaad xanuunsan tahay haddaad niyad kacsan tahay haddaad wax u murugoonaysid hadday wax baahidaadu tahay wixii jiraba annaga ma naqaano kolay qalbiyan ku tahayna marka meesha waa meel waano waa meel dhiirigelin waa meel lagu leeyahay ha ka rajabeelin naftaada nafnoo lagama quusto insha allahu khayr haddaan kula shaqeeyana fadlan codkaaga soo dhiibo ila sheergaree dabiibka tag goorku ilaahay ka raali noqdaan kuu soo jawaabi doona insha allah iyo uun afkaada ku ciilin haddii adiga taada aan kasoo jawaabina tu walaalaan kasoo jawaabay adeegeedina aan kuusoo gudbina taasna kasii faa'iideyso khayr badan iyo farxad badan aan ilaahay inoo wada weydiiyey dhammaan xalka la raadina waa madax ilaa iyo lug hadda waa aragteen aan u malaynaa waxyaabaha loo soo jeestay ogaashadeeda waa wax badan waa wax aad u fara badan oo awal aanaba fahansanayn as dhalinyaro ama dadka ordo ama dadka dhexaadka lama ogeyn haddase waa la ogaaday waqti saha la siiyo looga bogto baabi'ii dhacay intaad ismoogeed da'dii ku qabatay dayicii hormoonee kugu dhacay hormoon ku qalqalmay nafaqa daradii dhacday hagaaskii dhacay caajiskii dhacay ciladaha la tabtay caafimaad darro wax allaala wixii la tabanayo waqti sii intuu arrinku saan isku dardarayay ama maqaarkaaga caajisayay ama timahaaga ciroobayeen ama jirkaaga xanuunsanayo jucjuuc aad tabanaysay ama howlgab yaroo howlo hoosa ay iska imaanayeen ma aadan ogeyn waa iska ordayso shantii booddaa ka mid ee sax haddaa isfahantay hadday warku ku dhacay haddaa micnihii fahantay haddaa ogaatay isla tacaalka iyo wanaagiisa laakiin meeshii waxaa soo geli doono jacayl duca ku kab qarash ku kab waqti sii oo waqti ku kab wadwad warkiioo kooban waxaa layidhi jir waa gacan ku hayn inkastoo haweenka loo sii dhaqaajiyay dhinacooda waxaa layidhi jir waa gacan ku hayn markaa xal raadinaysid waa gacan ku qabo haddaadan gacantaas ku qabanaynin den maaqaanahe jugjug halkaaga joogta la sheegaya waayo marka wax badanaa ka sheekaysan doonaa tanasulaan sameeyey aniga xaggayga ah oo aan ka sameeyey waxyaabihii aan idinku eedeynay meel yaroo gaabana wax layga tuso horaa waxaa loo yiri wixii kaa maqan walaalkaa hijraan marka waa qaatay tanasulka adinkana tanasulka qaata qasab maaha in layla soo xiriiro qasab maaha inaan kula shaqeeyo qasab maaha inaad waanada qaadato jas naftaada le ogow adi micnaha fahan waanada qaado maasha allahna dheh haddaa maanta ilaahay guul ku gaarsiiyo ilaahay u xamdi ilaahay u shukri mahad ilaahay bay u sugnaatay annagana haddaa saaxiib noo tahay wax naga faa'iidid maasha allah mahad ilaahay bay u sugnaatay maantii maalin walbaba isku soo noqod kaloo wanaagsan khayr iyo farxada ilaahay noo wada weydii dhammaan micno kasta waa la fahmi karaa dadku ilaahay maanta garasho wuxuu u siiyey ilaa iyo ciladaha dhiigooda gudahaaga dhiiga ku jiro ayaa la nadiifin karaa maanta cilado badanaa laga nadiifin karaa nafaqaa loo helay dawaa loo helay ducaa loo helay afkoos qur-aanka ilaahay waa daawo marka alxamdulilah marka warkii kooban lagu soo koobay jir waa gacan ku hayn ama nafnoo lagama quusto waxaa la ogyahay qofkii lala tacaalo qalbiga loo dhiso niyadda loo dhiso nafaqo la siiyo la farxad geliyo waa laga baxaa la yirahdo la dhiirageliyo qofka inuu habi noqonaa marka qofka laga sii nixiyo oo laga bajiyo oo wixii dhanba qamqam looga siiyo albaabada dhan qofka wuu iska niyad jabaa wuxuuna iska dhaadhicinaa saan inuu ku aaqirsan doono marka ha quusanina ilaahay barya cidu idinkama xigto oo cidu nagama xigto caafimaadkaagana adigoo muhiim kuu yahay farxadaada aday muhiim kuu tahay hayahe I love you so much barashada xaggeeda baabka loo furo hadday tahay niyadaada dhis oo wax badan niyadaada u baro oo qalbigaaga u baro hadday tahay cunadii oo iyadana de muujad ah dhexgal baro hadday tahay arrimahaaga kale ee adiga iyo waxaad awoodda ah ilaahay bay awoodda sugnaatay xaaladaada ogow jeebkaada ku xisaabtan shilinkaagii gooskaaga waa laysbaraalir maanta waxaad lafahaaga u cuntay khasaare maaha laakiin waxaa khasaara waxaa lafahaaga usoo gadatay ha kugu duldhacaani qashinka ha loo duldhigo taasaa khasaare ah ama intaa wax fiican maqashid meeshaa ku maqasho oga caraba kasii qaat ka alla magan taasaa daran marka wixii fiican maasha allah dha ilaahay baa ku haleeshiyey wixii kalena kuu dhiman ilaahay xaggiisa jiraan allah kuu sahlo
dadii dunyaba waa loo baahan yahay sama marka hala duceysa ilaahay sidoo muraadka oo abshira noo siiyo dhammaanteenba haye gabdhaha aan gaar iyo gooni ula shaqeeyo nafaqada hortiina taala xaajimaco iyo adigaas la isticmaali karo waa xagga qurxinta inteydii ka dhiman insha allah waa idiin soo geli doontaa waa idinla joogaa ani kolley ayaantaan night shiftiyan shaqeeya bareegaan qaadanayaa xariga dhagaa igu jiro nambaradan hortiina yaallo waa dadka xagga janalka iiga xiran masajadii kusoo dhacayaan rabaa inaan dhegeysto whatsapp ahaanta qofkii qoraal soo diro iga raalli ahow qofkan waxaan loo baahnay soo qorow iga raalli ahow qofkii degdeg ay ku jirto oo 10 jeer wactamaayo adigana iga raalli ahow yaa waa dadka u jawaabo dadka islaamo hadal dabacsan oo duca leh oo salaan leh barasho magac leh iigu reebo whatsappka ilaahay idankiisa waa kuu soo jawaabaa haddaanan hore kaaga soo jawaabin iyo sabar adiga keliga ilama aada soo xiriirin waxaa laga yaabaa videoga inaan dad badan u diro inaan meelo badan ku diro inuu youtube-ka dhex yaallo marka dadka soo geli doona qadka aniga ma qiyaasi karo messageka markaa reebtidna degdeg yay kugu jirin goorku ilaahay idmo oon dhageysto codkaagaas iyo akhbaartaadaas insha allah waa kuu soo jawaabi doonaa ilaahay idankiisa fadlan mar walba waxaa ogaataa dadka aan gaar iyo gooni nafaqada ugu tilmaamayo waa dadka ballanta dhigta ee memberka ka noqday dabiibka ee cashar bixinta u fariista meel marka waxaan arkaa dad badan oo dhahaya cashirkaa ka hadlaysid ma arko linkiisii ma arko dadka arki kara waxay yihiin dadka aan la shaqeeyo waaye dadkaasna waa dad ugu talagalay in gooni loo siiyo waxyaabaha iskula tacaali lahaayeen hayehe garabkiina allah galo waa idi salaama dhiirigelinta aad leedahay qaado ilaahay bari nafaqo fiican raadso allah kula garab galo arrinka aad wado allah kugu guuleeyo aamiin yaa rabbi dhammaanteenba cafi caafimaad I love you so much isku soo noqod kale wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu